iyadoo ay gebi ahaanba muslimiintu meel kasta ka joogaan daafaha caalamka ay ahayd maalinta ciidul fitrida ayaa waxaa maanta shacbiga reer Garadag caruur iyo waayeelba isugu soo baxeen garoonka lagu tukado salaada ciida waxaana halkaasi shacbiga ugu khudbadeeyay culimada kala duwan ee degmada Garadag ay wasaltaa وفي صحيحين من حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء الرجل قفك الرحين كإيال كحريري يعني قنوان حريرنا يا ومن قضاها قفك قوينا باتتا واني قنوان قوينا يا إنه دروه وإلهي نغيله إلهي وحن كبرينا كمانكنك نار تلقى حريو إن إلهي إنه دروه بسم الله الرحمن الرحيم دعينه ودرسكينو واجب باينغا سارن وقرابدينا واهلكينا kuwa inaga fogfog iyana dhibaatadu haysana ilaahay ha ka dulqaado alxamdulilaahi rabbil caalamiin mar labaad iyo mar saddexaad inaguna aan ilaashano nabadgelyadeena iyo nimcada aynu haysano aan ilaashano ilaahayna haynoo siyaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wasallam ilaahay ha ka dulqaado toddobaadada soo socda deegaankeena hawl badan baa ka jiri doonta oo runtii u baahan inaynu ku baraarugsanaano taasoo ah dhinaca diiwaangelinta markaa waxaa jiri doonta inaynu siiman doono inaga qaaliya oo ciidka ku saabsan u diraya dhammaan muslimiinta meel kasta daafaha adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo aan gaar ahaan ciid u dirayaa waxaan maanta halkan hambalyo ugu danaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leenahay ciid mubaarak waxaan dhammaan ummadda islaamka aan u dirayaa hambalyada maalinta ciidda waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay haynaga aqbalo rabadaan taa aynu ku soonnay ciida barakaysan aqbalo ilaahay haynaga aqbalo dhamaanteen rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxaan hambalyeynaa hambalyada ciidul fitriga u diraya dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan ummadda Soomaaliland salaan qaalay uga diraya ummadda islaamka oo dhan dhammaan meel kasta ay joogaan aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidul ciidayn waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta ay joogaan dhammaan ummadda islaamta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ku darso waliba ciidkan waa sanad guuradeedii aan dhashay kale daan siciyaan leh waxaan salaanta islaamku salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak Mustafa Saalax Ahmed kamid ah dhalinyarada degmada Garadag ugu horeyn waxaan la ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta dunida daafeeda kala joogto waxaan aad iyo aad uga faa'iideysanayaa fursadda qaaliga ciidul fitriga awgeed ummadda muslimiinta meel kasta joogto waxaan leeyahay bisheeda bashbashiyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo dhammaan Axmed Jaamac Aadan wararka telefishinka caalamiga Universal degmada Garadag galbeedka gobolka Sanaag